Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa 6 dhibaato oo laga dhaxlo dhafarka iyo sida lagu xalin karo dhibaatooyinkaas insha Allahu tacaala. Marka hore, dhafarka iyo hurdo la'aanta waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin aad u badan oo kala duwan. Maadaama maanta caalamku uu isbedelay, habeenkii iyo maalinkiina isku mid ay noqdeen xagga dhaqdhaqaaqa, waxaa aad u soo batay dhibaatooyin badan oo la xiriira hurdo la'aanta ama dhafarka, taasoo na dareensiisay ahmiyadda hurdada iyo faa'iidooyinka caafimaad ay hurdada habeenkii leedahay. Dhafarka habeenkii waa wax khilaafsan sunnadii Rabbi subxaanahu wa tacaala ee ugu talagalay bini'aadamka. Rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku xusay in habeenkii loogu talagalay degnaan iyo hurdo, maalintiina in loogu talagalay nolol iyo dhaqdhaqaaq. Qofka bini'aadamkana labaduba ma ka maarmi karo. Ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku dhahay, qaala Allahu tacaala وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. بنادمك habeenkii waa inuu hurdaa, maalinkiina waa inuu raadsadaa maciishadiisa. Waxaa jirta fikrad khaldan ay dadku qaar aaminsan yihiin. Fikraddaasoo ah haddii qofka uu habeenkii soo jeedo maalintiina uu seexdo inay isku mid yihiin oo uu helayo faa'iidada hurdada. Laakiin taasi sax maahan, sababtoo ah qofka bini'aadamka ah jirkiisa maalintii iyo habeenkii si isku mid ah uma shaqeeyaan. Habeenkii waxaa loogu talagalay nasiino iyo hurdo. Unugyo badan oo jirka ka tirsan wuxuu Rabbi subxaanahu wa tacaala ku borgaraamiyey inay shaqada yareeyaan ama ay hakiyaan. Sidoo kale habeenkii xubnaha qaar ayaa yareeya wax soo saarkooda, sida qanjirada soo saara hormoonada iyo dhacaanada jirka uu u baahan yahay. Maalintiina waa cagsi, sababtoo ah qaybo badan oo jirka ka mid ah oo habeenkii nasanayay ayaa maalintii la howlgeliyaa. Midaasina waa nicmo Rabbi subxaanahu wa tacaala uuna siiyey. Sidaas darteed hurdada maalintii ma gudi karto, mana buuxin karto booska hurdada habeenkii. Dadka habeenkii shaqeeya ama dhafra waxay la kulmaan dhibaatooyin badan oo ka dhasha dhafarka ay dhafrayaan. Dhibaatooyinkaasna waxay culays daran saaraan jirkooda oo u baahan nasiino. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah hurdada habeenkii waxay kobcisaa difaaca jirka, waxayna awood dheeraad ah iyo firfircooni siisaa unugyada jirka ee Rabbi subxaanahu wa tacaala ugu talagalay inay ka hortagaan waxyaabaha jeermiska ee jirka soo weerara. Sidaas darteed, dhafarka iyo hurdo la'aanta joogtada ah waxay keenaan in qofka jirkiisu uu iska difaaci kari waayo xanuunada soo weerara. Hurdadu waxay yareysaa miisaanka qofka. Shakhsiga waxay ka dhigtaa shakhsi leh jir qurxoon oo caafimaad qaba. Waxaana muhiim ah shakhsi walba bini'aadam ah habeen kasta inuu helo ugu yaraan 7 saac ilaa 8 saac oo hurdo nadiif ah si uu u helo caafimaad taam ah. Dhafarkana wuxuu keenaa cayil. Waxay cilmi-baarayaashu arkeen in dadka dhafra habeenkii 30% ay kaga halis badan yihiin cayilka dadka habeenkii xilli hore seexda. Shakhsiga markuu soo jeedo habeenkii in badan wuxuu dareemaa gaajo aad u badan, taasoo sababta inuu cuno raashin aad u badan. Laakiin shakhsiga hadduu xilli hore u hurdo, waxaa yaraanaya isticmaalka raashinka xilliyada habeenkii, taasoo sababta in habeenkii oo dhan dheecaanada jirkiisa ay baabi'iyaan dufinta aan loo baahnayn ee jirkiisa ku jirta. Hurdadu waxay kordhisaa caafimaadka iyo dareenka maskaxda. Qofka dhafra habeen walba subaxii wuxuu dareemaa degnaansho la'aan iyo xanaaq fara badan, maadaama habeenkii oo dhan jirkiisa uusan nasan. Sidoo kale qofka dhafarka badan wuxuu noqdaa qof niyad jab badan, welwel badan, cabsi badan. Daraasad lagu sameeyey dad badan oo ka cawda welwelka iyo cabsida, waxaa lagu ogaaday in dadkaas badankooda aysan helin hurdo ku filan ama ayaga inay habeenkii oo dhan si qasad ah u soo jeedaan. Arrintaasoo ku keenta inay markii dambe la jaar noqdaan cabsida, welwelka iyo dhibaatooyin kale oo joogto ah. Hurdada habeenkii waxay ka hortagtaa sokorta ama kaadi macaanka. Dadka habeenkii dhafra waxay halis ugu jiraan cudurka macaanka noociisa 2, taasoo ka dhalanaysa wareer ku yimaada qaabka jirku uu xakameyn lahaa ama uu kontrooli lahaa sokorta uu cuntada ka helo. Dhafarka wuxuu yareeyaa hamiga shakhsiga dhan weliba. Waxaa la arkaa dadka habeenkii dhafra inay ka hami yar yihiin dadka habeenkii xilli hore seexda. Dhafarka muddada dheer wuxuu shakhsiga ku sababaa inuu siyaado wadna garaaciisa, taasoo keenta in cadaadiska dhiiggiisa uu bato. Arrintaasoo culays ku keeni karta caafimaadka wadnaha. Sidaas darteed, shakhsiga sida joogtada u dhafra wuxuu halis ugu jiri karaa xanuunada wadnaha ku dhaca. Dhafarka wuxuu ragga iyo dumarkaba si isku mid ah ugu yareeyaa hormoonada u xilsaaran taranka. Dhakhaatiirtu ku takhasusay howlahaas waxay sheegeen hadduu shakhsiga dhafarkiisa joogto u noqdo inay ku sababi karto qalqal ku yimaada hormoonada tarankiisa, taasoo dhibaato badan ku sababi karta mustaqbalka. Markaana waxaan soo qaadan doonaa talooyin muhiim ah oo kugu saacidi kara inaad iska dhaafto ama iska yareyso dhafarka habeenkii. Talada koowaad, haddii aad ka mid tahay dadka habeenkii dhafra, isku day inaad ku dadaasho sidii aad u heli lahayd hurdo kugu filan habeenkii.
adigoo ka fogaanaya waxyaabaha dhafarka ku keeni kara. Waxaa laga yaabaa nafsadaada iyo shaydaan inay kaaga sheekeeyaan habeenkii waa 12 saacadood, adigana waxaad u baahan tahay kaliya 8 saacadood oo hurdo ah. Marka iska soo jeed ilaa iyo habeenkii 4 saac. Marka saacaday gaarto 4 saac habeenkii, haddana inay kugu dhahaan ku darso 10 daqiiqo ama wax la mid ah, kadibna sidii aad ku gaarto 6 saac habeenimo, kadibna inaad isdhaahdo habeen dambe ayaad xilli hore seexan doontaa. Caawa iska soo jeed. Ogow arrintaasi waxay dhibaato aad u weyn ku tahay jirkaaga. Waxaadna dareemi doontaa xilli aadan waxba ka qaban karin. Marka inta aan xilligaasi la gaarin, maanta ayaad fursad haysataa. Isku day markaad salaada cisha aad tukato wixii ka dambeeya inaadan mobil ama waxyaabo ku mashquulnaadan isticmaalin. Habeenkii 2 saac iyo bar ilaa iyo 3 saac habeenkii inta u dhaxaysa inaad seexato si aad subaxii u soo toosto adigoo firfircoon, kadibna salaada subaxa jamaaca ugu dugato, kadibna aad jimicsi samayso, kadibna aad shaqadaada aado adigoo aad u firfircoon. Talada labaad, haddii aad shaqaysid habeenkii, ku dadaal inaadan joogto ka dhigan shaqadaas ama aad ka raadsato shaqo kale oo maalintii ah. Sababtoo ah shaqada habeenkii ee joogtada ah waxay leedahay dhibaatooyin caafimaad daro oo aad u badan. Marka isku day inta karaankaaga inaad maalintaas shaqayso. Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku leeyahay qaala Allahu tacaala wajacalnaa nawmakum subaatan wajacalna allayla libaasan wajacalna annahaara macaasha. Talada saddexaad, haddii aad ka mid tahay dadka habeenkii dhafra, ka fogow waxyaabaha hurdada kaa fogeyn kara sida kofeyga ama cabitaanada laga helo enerjiga. Kuwani waxay jirkaaga saarayaan culays dheeraad ah. Waxay la mid tahay adigoo baabuur matoorkiisa kululaaday raba inaad sii wado oo aad sii sheelanayso. Sidoo kale iska ilaali inaad maandooriye aad ku darto dhafarka sida qaadka iyo waxyaabaha la midka ah. Sababtoo ah dhafarka wuxuu wataa dhibaatooyin gaar ah, maandooriyahana wuxuu wataa dhibaatooyin gaar ah. Markaad labadooda isku darsatana adiga naftaada haligay. Marka isku day inaad ka fogaato labadaba adigoo la imaanaya dadaal xoogan una tala saaranaya Rabbi subxaanahu wa tacaala. Talada afraad, dhakhaatiirtu waxay kula talinayaan qofka raba inuu yareeyo dhibaatada dhafarka ee uu muddada badan ku soo jiray inuu saacado dheeraad ah u hurdo habeenkii. Hurdadaas oo ah mid aan buuq lahayn. Waxaa lagula talinayaa in qofka uu helo 10 saac hurdo oo xiriir ah habeen walba si uu ugu soo kabto dhibaatooyinka dhafarka uu hore u gaarsiiyey. Talada shanaad, haddii aad ka mid tahay dadka dhafarka u isticmaala internetka ama daawashada filmaanta aan wanaagsanayn, ka fikir mustaqbalka caafimaadkaaga. Iskana jooji caadadaas aan wanaagsanayn, taasoo haddii aad muddo dheer sii wado kuu keeni karta dhibaatooyinka caafimaad daro ee aan kor ku soo xusnay. Ugu dambayn, naftaada waa kugu ammaano. Wax walba aad ku samaysana beri waa lagu su'aali doonaa, waa lagula xisaabtami doonaa. Marka naftaada wanaag u horsayd si aadan beri ugu shalayn. Insha Allahu tacaala. Assalaamu calaykum.